اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. saaka halkan maamulka Khaatumo magaalada Buuhoodle waxaan isugu yeernay saxaafadda ugu yeernay inaanu shir sharaa'id ku qabanno kaasoo ku saabsan nabad been abuura oo maamulka sheeganaya Somaliland sidii uu qaskaba uga waday gobolkan Geeska Afrika muddadii dhaweyd ayaanu u qabanay nabad beeneeda uu ayaamahan oo dhan kula wareegay media gaar ahaan odayaal reer Buuhoodla uu hoosta nabad kufsi kala waday taasaanu shirka sharaa'id u qabanay inaanu beenino maamul ahaan maamulka Khaatumo nabad buu ku dhisan yahay siyaasadiisu laakiin nabad been ah oo aan jirin iyadoo ceelashii biyaha iyo daaqii iyo dhulkii reer miyigu ay ku noolaayeen lama arag Soomaalina wali may soo marin in ceelal biyo oo la isku oomiyo oo ciidan inta la dulkeeno la yiraahdo laga cabi maayo muddo dheer lagu wado nabadda been abuurka aan jirin aan saliya raatoona lahayn ayaanu shir jaraa'id ka qabanay maanta waxaanu leenahay odayaal iyo dawlad labadaba waanu leenahay nabadana waanu ogolahay laakiin ma ogolin nabad beenbeena oo aan jirin oo iyadoo dalkii la haysto dadkii la xasuuqayo haddana afka laga leeyahay afka baarkeeda inaanay waxba ka jirin odayaal la qasaban karo maanta oo lala dhuuman karo oo la xadi karaana aanay jirin taasaanu shirka jaraa'id ka qabanay oo aanu ka hadlaynaa wixii inta faahfaahinana wasiirka Yaasiin Axmed Sulub ayaan ku wareejinayaa inuu ka bixiyo ku soo dhawo wasiir halkan sida wasiirku sheegay waxaanu ka bixinaynaa wasqafada ku saabsan sigii uu dhiibay wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Soomaaliya ee waqooyi galbeed waraysiga uu dhiibay nabad buu ka hadlay nabadda lama diido waa wixii nabad ku saabsan waanu soo dhaweynaynaa anagu maamulka Khaatumo laakiin waxay u baahan tahay in la soo maro wadadii ay lahayd aan laga leexanin in lala soo xiriiro odayaal ka tirsan maamulka Khaatumo ahaan shacabka reer Khaatumo waxaanu aragnaa inay tahay xadgudub odayaasheedii lala soo xiriiray maamul baanu nahay haddii ay maamul yihiin maamul bay la soo hadlayaan nabaduna kama go'do oday waxay ka go'daa maamulka Khaatumo iyo wixii madax dhaqameeda ee iyagu aan u idmano in ay nabadda xidhaan laakiin waa marka ay timaado nabaddu ay la hubo inay xidhmayso iyada oo sida aynu ka warhayno ama caalamku dhan og yahay ceelashii biyaha laga fadhiyo sidii wasiirkii uu magacaabay isla markaana la fadhiyo caasimadii dhulbahante ay gacan ku jirto maamulka waxaanu nabad kaga hadlaa noo muuqato waanu ku ixtiraamaynaa maamul goboleedka waqooyiga Soomaaliyeed waxaanu ku ixtiraamaynaa maamul goboleednimadeeda waxaanu jecelahay anagana sidaas loogu ixtiraamo maamul goboleedkayaga ilama aha aniga mid qumman ama wax ay dadku yaqaaneenba qabiil iyo maamul isberber ordaya oo markaan taa dib ugu noqdo intii anagu aanan ahayn maamul goboleed aanan qane ilaa laga soo bilaabo dagaalkii Kalshaale qabiil baanu ahayn dhulbahante la yiraahdo waxaa markhaati ka yahay adduunka oo dhani Soomaaliya ama adduunka inta daawata media daawata in ay ahayd qabiil iyo maamul isdilaw waa la arki jiray laba qabiil oo isdilan waa la arki jiray laakiin maamul qabiilkii hoos ordayo oo aqalkii muusanaabayo oo tolo ay leeyahay oo leeyahay tanga iyo soo dhaqaajiya oo waxay ku duulayaan ay qabiil hayd oo wax laga xishoodo oo waxaan horay u arag ka soo gudub iminka saynu ognahay
sool joogtay meeyaagle reer baa ku nool xoolahoodii ka waraabsada reerhii deganaa ee lahaa dhulkana waa laga soo saaray waa la qabsaday taangi baa loola yimid waxaan u jeedinayaa shacabka soomaalida waqooyi ismaamulka waqooyi in ay isweydiiyaan inay habboon tahay qabiil taangi hor socdo oo la leeyahay xoolaan ka saaraya xoolahaaga keenso inay tahay wax laga yaqiiqsado wax haday xataa ismaamul sheeganayaan aanay maamul isaanay ugu hagaagaynin inay tahay wax qabiil lagu koobay taa intaasaan ku dhaafaya waxaan jecelahay odayaashayada inaan la faragelin naloo daayo naloo dhaafin cidda anagu aanu soo saarno aanu u igmadnay nabad inay xidho baanu jecelahay in haddii nabadi markay timaado ee ay muuqato looga kaco dhulkii oo caasimadii laga kaco oo nalaga raro xoolo qabiilku leeyahay ee la keenay nalaga raro taangiga nalaga raro markaasaan u wada hadlaynaa laba maamul jaara Soomaaliya ixtiraamkooda leh is-ixtiraama markaasaan wada hadal go'ay anagoo maamulka Khaatuma. Wassalaamu calaykum.